golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa soo saaray amaro u muuqda kuwa wax badan ka bedeli doona ammaanka magaalada Muqdisho iyo sidoo kale ciriiriga dhanka wadooyinka iyadoo amarka ugu badan uu ku wajahan yahay dhanka mooto bajaajta kadib markii caasimadda Muqdisho aad loogu soo daabulay mootada saddexda lug leh ee bajaajta taasoo shaqo abuur u noqotay dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa waxaa la soo saaray amar lagu xakameynayo mootooyinka cusub sidoo kalena lagu nidaaminayo kuwa hadda shaqeeya ujeedka ugu weyn ayaa ah sidii dhalinyaradan ay shaqadooda sare ugu qaadi lahayd iyo waliba in uu yaraado ciriiriga magaalada la helo isfahamka ciidamada ammaanka iyo dhalinyarada mootada ku shaqeysta go'aankan waxaa ka mid ah in dalka laga mamnuucay in laga soo dejiyo mootooyinka bajaajta tan labada lug leh iyo sidoo kale mootada loo yaqaano midda gaariga ilaa iyo amar dambe waxaana sidoo kale ilaa amar dambe la joojiyo bixinta taarikada mootada waxyaabaha ay wasiirada soo saareen waxaa ka mid ah in la midbeeyo mooto bajaajta sidoo kalena loo kala saaro xarfaha A iyo B waana suuragal inay tani dhibsadaan dhalinyaro badan oo mootada ku xamaasha hase yeeshee waxaa ku hoos jira faa'iido badan waa haddii sida loogu talagalay loo dhaqangeliyay tusaale marka mootooyinkan la kala saaro xaraf walbana la mariyo rinjiga ama midabka loogu talagalay waxa ay shaqada u kala qaadan doonaan maalin haddii mootooyinka A ay shaqeeyaan maanta birito waxa shaqada soo gali doona midda B meeshaasi waxa ka baxaya ciriiriga wadooyinka waxayna sidoo kale heli doonaan dhalinyarada qarash ku filan oo ay noloshooda ku maareeyaan maadaama marka dhamaantood ay wada shaqeynayaan ay xitaa isku riixaan dhanka lacagta oo qiimo aad u hooseeya mararka qaar ku tartamaan qaarna xitaa waxa ay waayaan shidaalkii maalintaasi ay ku shaqeynayeen haddase waxay heli doonaan qiimo macquul ah noloshu sidoo hore ayay iska bedeli doontaa waxayna heli doonaan waqti kale oo ay nastaan ama shaqooyinkooda kale ay ku qabsadaan waxyaabaha hadda yaabka ah ayaa ah in baraha bulshada sida dharkii loogu xaraashayo boqolaal mootooyin bajaaj oo cusub kuwaas oo haddii magaalada ay soo galaan aad uga sii dari lahayd dhanka isu socodka wadooyinka reer Muqdisho dhibka ugu weyn ee ay hadda qabaan ayaa ah wadooyinka dhagxaanta ku xiran laamiyada oo gaadiidka isku xirmaan iyadoo shaqadoodii ay gabeen ciidankii ilaalada wadooyinka sidoo kalena magaaladu aanu lahayn samaafare lagu kala haga gaadiidka iyo dadweynaha maxaa soo dedejiya go'aankan maadaama tirabeel ay noqdeen mootooyinka bajaajta gaar ahaan kuwa ka shaqeeya magaalada Muqdisho sidoo kale ay soo bateen falalka amniga wax u dhimaya oo mararka qaar ay dhacdo in lagu dhex dhoonto dhalinyarada shaqaysanaysa sidoo kalena xitaa dhalinyaradaasi naftooda ay halis gasho waxay xukuumaddu garatay in dhalinyarada la badbaadiyo ayna si wanaagsan u shaqaystaan xogta aan helay ayaa sheegaysa in marka uu dhamaado diiwaangelinta mootooyinka iyo kala siinta xarfaha A iyo B in xukuumaddu qorsheynayso in sidoo kale jid cadayaasha magaalada Muqdisho ee dhagxaanta ku xiran loo baneeyo meel ay mootooyinka mari karaan gaar ahaan mooto bajaajta loo fududeeyo socodka magaalada sidoo kalena loo ogolaado habeenkii oo dhan inay shaqaysan karaan dhalinyarada ku darso waxyaabaha hadda la qorsheeyay waxa ka mid ah in xitaa mootooleeda diiwaansan ay helaan fursad ay ku tagi karaan ilaa nawaaxiga garoonka aadan cadde si ay shaqooyinkooda sare ugu qaadaan balse dhibku ugu weyn waxa uu imaan doonaa marka ay dowladda federaalka Soomaaliya ay wax walba af iyo balan ay ka noqdaan oo aan la fulin dhammaan qorshayaashan sidoo kalena tani ay noqoto mid cadaadis lagu saarayo dhalinyarada jaamacadaha ka baxay iyo kuwa kale ee shaqo abuurka ka dhigta mooto bajaajta kaliya dib u habeen uma baahna mooto bajaajta ee dowladda waxa kale oo dib habeen uga baahan ciidanka dowladda hoose oo qaab aad u daran isugu daya inay dhalinyaradaasi canshuurta uga qaadaan waxaana imaan karta in meelaha qaar u yimaado musuq ku saabsan diiwaanka mootada oo hadhow ay noqoto dhib aan ka soo kabasho lahayn daawade tani miyay wax badan ka bedeli kartaa ciriiriga ka taagan wadooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho aragtidaada qaybta hoose commentiga noogu reeb muuqaalka share gareey si dad badan u gaaro mahadsanid